بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وين السلام بين كستان جوتين محدث إسكاله إلهي مرة وعد أنا وعف ما تقبل السكان كيني عاو حروين هذا كذا شكيو شاكو لحمرتي لبنين ومقالو قوة نولا لبنين وحي حيين مد بخيلة ومد حاسدة. sheekadii waxay ku bilaabanaysaa magaalaha waxay ku wada noolaayeen laba nin oo mid baqiil yahay midna xaasid yahay. magaaladan ninkii ka talinaya oo madaxda ka ahaa maalintii dambe wuxuu ku casuumay gurigiis markaasuu dhahay birito qadaa idin sameynaya casuumaad ii imaado. labadii nin meesha imaadeen markay imaadeen qadadii markii loo keenay ee cuneen oo cabaar la joogay markii sheekada ay bilaabatay ayaa ninkii madaxda ahaa wuxuu dhahay maanta waxaan rabaa inaad wax iga codsataan. nin walbo ninka hadalka ku horeeyay wuxuu uu codsado dhahay ayaa kan labaad waa loo laba jibaara kaas waxa uu codsaday kan labaad waa loo laba jibaara. hadduu codsado in 100 geel la siiyo kan labaad waxaa la siinaa 200 oo geel. marka ninka hadalka ku horeeyo wuxuu codsado midka kale loo laba jibaara u dhahay. markii labadii nin waa isfiirfiiri way hadli waayeen. midna waa xaasid ileen midna waa baqiil moqt ma rabaan marka inay midka xaasidkaana ma rabiyo kan inuu wax helo kan baqiilkaana ma rabo inuu ka kala wax helo. labadoodii way hadli waayeen si u aamusnaayeen muddo markii ay kasoo wareegtay saacade ayuu ninkii madaxda ahaa wuxuu ku amray in haddii ay codsan waayaan 30 daqiiqo gudahood haddii midkood uu wax codsan waayo labadoodaba la dili doono. markii cabaar la joogay oo 30 daqiiqo ay 1 daqiiqo ka dhiman tahay 29 daqiiqo markii la joogo midkii xaasidka ahaa istaagay markaasuu dhahay waxaan codsanaa ninkii madaxdiiyo ninkii boqorka ahaayo waxaan ka codsanaa amba ninkii madaxda ahaayo waxaan ka codsanaa inaa hal il iga ridido dhahay dab iga siis oo ishi dab iga soo ridid. markaasuu kii kale uu isku dhaxay sababta wuxuu ogyahay kan haddii hal il laga rido kan kale in laba laga ridayo mogt. markaasuu ninkii boqorka ahaa ama madaxda ahaa ayuu dhahay ninkii ishaa sidii looga riday kii kalena labada indhooda laga riday. marka waxayna tusinaysaa sheekadan aan kaga sheekeynayo waxayna tusinaysaa in xaasidnimada iyo baqiilnimada midnaba ay fiicneen. walaalkaaga u ogolow in uu wax helo hadduu wax ilaahay siiyana u ducee dheh ilaahay oo u badi anna ilaahay sii dheh laakiin xaasidnimo ha u sameyn. baqiilnimadana ma fiicno sababtoo diinteena islaamka wax badan ay ka hadashay dadka baqiilka ama baqiilnimada meesha ay dadka gaarsiiso iyo dhibaatada ay leedahay. marka baqiilna ma fiicno xaasidnimo ma fiicno. marka akhyaaray sheekada intaas aan kusoo gabagabeynaya mahadsanid. haddii aad sheekada ka hesheen like comment subscribe waa mahadsanid. idinka wax idinku ahay walaalahay waa idin jecelahay markasto sheekooyin aan idiin soo gudbinaa insha allah. bariyaan waa idinka daahay waa ka xumahay ciidna way soo gashay waxaana way ahayd soonkii oo wadacan waa la soomayay marka waa iska mashquulay laakiin hadda kadib wax badan aan idiin soo geli doonaa. mahadsanid waa idin mahadnaqayaa sida aad wacan oo ii dhiirigeliseen markastane waxaa idin leeyahay walaalahayga soo dhawaada diyaar aan idiin ahay inaan sheekooyin badan idiin soo gudbiyo insha allah. mac salaam.